kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka iyo Soomaaliya waxaana idin la socodsiinaya anigoo ayaan la geedi afra qodobada warkana waxa ugu waaweyn Kenya oo lagu eedeeyay in ay wado faragelinta Soomaaliya kadib heshiiskii madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta sidoo kale waxa la ogaaday diyaaradii ka degtay magaalada Kismaayo inay lahayd dalka Kenya sidoo kalena ay rabto in ay ku carqaladeyso siyaasadda gudaha ee dalkeena qodobo dastuuri oo la rabo in Kenya looga joojiyo kiiska maxkamada ICJ dowladda Soomaaliya oo ka qayb galaysa shir heer caalami ah ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre oo bixiyay 317,000 oo lagu dhisayo buundada Baardheere wasiir Beele oo shaaciyay waxa lagu qabto lacagta la siiyo argagixisada iyo Somaliland oo qiratay in ay tahay maamul hoos yimaada ee qaranka Soomaaliya oo diyaar garooba qodobadaas oo fidsan dowladda Kenya ayaa u muuqata in ay sii wado cadaadis ka dhan ah xukuumadda dhexe ee dalka taas oo la xiriirta muranka ay ku sheeganayso badda Soomaaliya oo hadda u muuqda mid ay ka rajo beeshay wafdi ka soo duulay madaarka diyaaradaha ee magaalada caasimadda u ah dalka Kenya ee Nairobi oo u badan xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda Kenya oo ka soo jeeda jubbooyinka iyo siyaasiyiin xil ka soo qabtay xukuumadihii dalka soo maray ayaa ka degay maanta magaaladaasi Kismaayo haddaba arrintan ayaa waxaan wax ka weydiinay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta cilmiga siyaasadda oo lagu magacaabo Cabdixamiid Aadan Axmed waxa uuna tilmaamay in arrintan ay tahay mid xukuumadda Nairobi ay doonayso in cadaadis ay ku saarto dowladda Masar Cabdixamiid ayaa inta ku daray in Kenya ay ku fashilantay dooda badda isagoo tusaale u soo qaatay warbixinada ay warbaahinada gudaha dalkaasi ku qorayaan iyo codsi labaad oo Kenya gudbisay si muddo sanad ah ee dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda badda aqoon-yahankan Soomaaliyeed ayaa dhanka kale tilmaamay in Kenya ay isku dayi doonto inay samayso siyaasiyiin iyada gacan saar la leh kana hor yimaada xukuumadda Soomaaliya isagoo si gooni ah u soo qaatay maamulka Jubbaland horjoogayaashooda dabayaaqadii bishii hore ayay ahayd markii madaxweynaha Masar uu heshiiska la dhex dhigay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Uhuru Kenyatta kulankan oo dhacay intii uu socday shir madaxeedkii 74aad ee qaramada midoobay ee ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa labada dhinac lagu qanciyay in si caadi ah ku soo noqdo xiriirkii ka dhaxeeyay bilowgii sanadkan Uhuru Kenyatta oo fursad u arkayay isgacanqaadka madaxweyne Farmaajo ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo muranka ay Kenya ku sheeganayso badda balse madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaashaanka u daruuray waxa uuna sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin kaliya in lagu kala baxo maxkamadda cadaaladda ee ICJ si kastaba ha ahaatee tallaabadii maanta ay dowladda Kenya ku ogolaatay in diyaaradii waday wafdiga gaaray magaalada Kismaayo ayaa ceel ku sii ridaysa heshiiskii lagu gaaray Mareykanka dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa rumaysan in diyaaradii ay ka degtay magaalada Kismaayo ee dibisay amarkii dowladda uusan lahayn maamulka Jubbaland sida uu sheegtay Jubbaland ayaa sheegtay in diyaaradda ay ku soo iibsatay lacag ka badan $2 milyan si ay u jabiso xayiraadda iyo amarada dowladda federaalka ah ee ka dhanka ah duulimaadyada Kismaayo la wareedyo ka tirsan dowladda ayaa idaacadda waddanka u sheegay in nooca diyaaradda ay ka degtay Kismaayo ay tahay Fokker 50 oo lambarkeedu yahay 5YJXJ kana diiwaan gashan dalka Kenya waxaana ay ku duuleysay shati ay leedahay shirkadda Juba Airways warar kale oo idaacadda waddanka helay ayaa dhinaca kale sheegaya in diyaaradda ay u kireysneed shirkad uu leedahay siyaasi iyo ganacsade Soomaali oo ku jira dowladda warkan ayaa sidoo kale sheegaya in Jubbaland laga yaabo inaysan si toos ah u soo iibsan diyaaradda balse taa beddelkeeda ay iibsatay saami ka mid ah shirkadda uu leeyahay siyaasiga Soomaaliga ah sidaas darteedna ay u awooday inay adeegsato diyaaradda dowladda Soomaaliya ayaa arrintan baaritaan ku haysa waxaana la filayaa inay go'aan ka soo saarto warkan ayaa weli isa soo taraya dhanka kaleeto koox Kenyaan ah ayaa doonaya in dowladda aysan wakiilo u dirin dhageysiga kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee bisha November ka dhacaya xarunta maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee markii la soo gaabsho loo yaqaan ICJ ee magaalada Hague kooxdan ayaa doonaysa in maxkamadda sare ee Kenya ay ka joojiso xirilaaliyaha guud ee Kahera Kariuki wasiirka arrimaha dibadda Monica Chuma iyo xafiiska xuduudaha caalamiga ee Kenya ka qaybgalka kiiska sababtuna ay tahay inuu xadgudub ku yahay dastuurka kiiska ay ka diiwaan galiyeen maxkamadda sare ayaa kooxdan waxa ay ku doodayaan in go'aanka maxkamadda uu hogaamin karo isbedel ku yimaada xuduudaha Kenya iyadoo aan afti la qaadin sida uu qabo dastuurka waxaan
waan ka walacsannahay inkastoo ay Kenya ay isku dayeyso in kiiska kala dhaxeeya ee dowladda Soomaaliya lagu xaliyo si saaxiibtinimo ah haddana lama sameyn wax dadaalo ah oo lagu cadeynayo in maxkamadda ICJ aysan sharciyad u lahayn inay kiiskan qaado ayaa lagu yiri warqad ay qoreen 20 qareen. Kenya ayaa hore ugu guuldareysatay doodii ay ku horjeedisay maxkamadda ICJ ahayd inaysan sharciyad u lahayn in kiiska ay ku gadagasho. Maxkamadda ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay shaaciso go'aan ku saabsan in kiiska mar kale dib loo dhigayo iyo sida ay codsatay Kenya iyo in kale. Soomaaliya ayaa doonaysa in kiiska la dhageysto waqtiga loo qabtay oo ah 4 November 2019. dhan kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Geneva ee dalka Switzerland iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay. Ujeedka wafdiga ay u tageen dalkaasi Switzerland ayaa waxa lagu sheegay inay halkaasi uga qayb galayaan shirka heerka caalami ee guddiga sare ee fulinta hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga adduunka. kulankan oo ah kii 7aad ayaa waxa isugu imaan doona dalalka xubnaha ka ah guddiga sare ee fulinta hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga adduunka iyadoo wasiirka uu ku matali doono dowladda Soomaaliya. kulankan ayaa lagu qaada dhigi doona arrimaha qaxootiga adduunka sidoo kalena lagu ansixin doona qorshe sanadeedka iyo miisaaniyadda hay'adda UNHCR. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa inta ku sugan yahay dalkaasi Switzerland waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda ka tirsan dowladda Switzerland iyo mas'uuliyiinta kale ee shirkaasi ka qayb galaysa. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa bixiyay $317,000 oo dib loogu dhisayo buundada degmada Baardheere ee gobolka Gado si ay uga qayb qaadato fududeynta isu socodka bulshada iyo kobaca dhaqaalaha dalka. Xasan Cali Kheyre oo ka jawaabaya cabasho ka timid bulshada Baardheere oo dhibaato badan ku qabtay burburka buundada ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in baahiyaha bulshada wax looga qabto sida ay u kala muhiimsan tahay iyo hadba inta ay la eg tahay awoodda dowladda. qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ku soo booqday xafiiska ayaa uga mahad celiyay ka jawaab celinta baahiyaha bulshada iyo bixinta lacagta dib loogu dhisayo buundada Baardheere oo muhiim u ah dib u kabashada dhaqaalaha dalka, horumarinta ganacsiga, fududeynta isu socodka, amniga iyo badqabka dadka iyo gaadiidka safarka ah. dowladda ayaa horay u ballan qaaday soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha dalka si loo gaaro isku filnaansho dhaqaale oo dalka u horseeda horumarka iyo barwaaqo ay bulshada Soomaaliyeed tiigsanayso. bal dhanka kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga caalamiga ah ee wadanka ayaa ka hadlay arrimaha dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan maaliyadda. Beyle ayaa waraysiga uu bixiyo waxa uga hadlay arrimo muhiim ah sida dhaqaalaha ay argagixisada ay ka hesho ganacsatada magaalada Muqdisho. wasiirka ayaa xusay in ay jiraan lacag la siiyo argagixisada oo xilligan dagaal adag kula jirta ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. arrinta argagixisada iyo waxbay qaadaa horta anigu kama warhayo waxa ay qaadaan iyo wax alle iyo wixii ay sameeyaan ayuu yiri wasiir Beyle. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in lacagta la siiyo argagixisada ay tahay mid lagu burburinayo dalka iyo kaabayaashiisa dhaqaalaha. lacagta cid kale ee la siiyo inkaar bay dadkani qabaane wax lacag ah dalka lagu burburinayay inkastoo aanan ogeyn wax la qaado ayuu yiri wasiirka sii raaciyay asagoo hadalkiisa sii raaciyay. Cabdiraxmaan Beyle ayaa ugu baaqay dowladda dhexe si looga dhiso dalka isla markaana ay la xisaabtamaan dadka. ugu dambeyn wasiirka ayaa soo hadal qaaday qorshaha daabicista lacago cusub oo shilin Soomaali ah oo ay haatan wada dowladda Soomaaliya. wasiir Beyle ayaa sheegay in dhammaan dowladda federaalku ay buuxisay shuruudihii laga rabay balse wali la leeyahay kaliya qarashkii lagu daabici lahaa lacagtaas oo tilmaamay inuu kor u dhaafayso $220 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ugu dambeyn xogayaha howlaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdi Haybe Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in safaaradaha ka furan Muqdisho ay u horseedeen Somaliland in wali ay sii hoos joogto dowladda Soomaaliya. Cabdi Haybe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in safaaradahaasi ay sabab u yihiin in xukuumadda Somaliland ay wax badan u daba fadhiisato dowladda federaalka Soomaaliya. xogayaha howlaha guud ee xisbiga wadani oo arintani ka hadlayay ayaa waxa kale oo ayiday dhawaaqii ceyrintii ahaa xisbiga UCID ee ku dalbaday in wakiilka Djibouti u fadhiyo Somaliland la eriyo. wuxuuna yiri wakiilka
safiirka Djibouti u fadhiyay qunsuliyadda Djibouti ee Somaliland hadalka uu ku kacay oo hadal diblomaasi kamuusan hadal si xun ay loo baahnayn ayuuna u hadlay sidaasi darteedna wakiilkani inuu dalka ka baxo oo dalkiisa ku laabto ayaa u haboon midda kale safiirka Djibouti wuxuu u fadhiyay magaalada Muqdisho safiirkii Turkiguna waxa uu fadhiyaa magaalada Muqdisho hadalkani waxa uu ku dhisan yahay qunsuliyadaasi ayina nasiib darro ku tahay xukuumadda ogolaatay wuxuuna intaasi ku sii daray macnaheeduna waxa ay noqonaysaa in Muqdisho aynu wax badan u daba fadhino waana fursad mudan in Turkiga aanu inaga waxba ina tarin halka uu caawiyo Soomaaliya ciidamadana uu u tababaro wax walbana uu la garab taagan yahay qunsuliyadaha aynu ogolnahay iyo safaaradaha Muqdisho ka dhisan waxa inoo horseedaan in maamul goboleed Soomaaliya ka mid ah inagu aan nahay runtan in la isku sheego ayaa haboon ayuu yiri qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkii idaacadda intii aan ka gaarayno warka xiga dhageystayaal waxaan idinkaga tageynaa sida iyo fi amaanillah